maamulka gobolka Gedo iyo saraakiisha ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan soo gaaray gobolka Gedo gaar ahaan degmada Doolow Soomaaliya ayaa waxa ay shir la qaateen bulshada ku nool degmada Doolow Soomaaliya shirkan oo ka dhacay taalada darjinka ee degmada Doolow Soomaaliya ayaa ahaa mid diiradda lagu saarayay sidii bulshada ku dhaqan degmada iyo ciidamada dawladda federaalka ay u wada shaqeyn lahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka Doolow Soomaaliya iyo Luuq iyo gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa shacabka kula hadlay fagaaraha beerta xuriyada ee degmada tan Doolow Soomaaliya degmada joogan wixii cadow ah kuma dhaxdhuuman jirin sidii hore inaad ahaataan cadowna ku soo dhaxdhuumanin oo sidii hore aad cadowga uga shaqeynayseen oo u ilaalinayseen inaad u ilaalisaan baa leen ka rabaa kuna dhiirigelinayna adukuna la socotaan diyaar muutiin dawladnimada Soomaaliyeed ee karaamada iyo sharafka ummadda Soomaaliyeed inay soo noqoto oo saldhig u noqotaan diyaar muutiin kama hirgalayo gobolka Gedo waxa aan dawladda Soomaaliya ee federaalka aysan raalli ka ahayn diyaarna uma niinaadanahay maamulada inay ka shaqeeyaan soo diyaar muutiin inaan ugu gaarsiisaan midnimadaas iyo dawladnimadaas diyaar muutiin maamulahan aniga heer gobol ah maamulkayga degmooyinka iyo aniga waxaan bulshada inta hadda shaqada sii wadnaa inaan ugu shaqeyno si sax ah in wax la soo qorqaray lama raba nidaamka waa dhisan yahay waa nidaam dawli ah waa nidaam sharci ah waa dawladda Soomaaliya oo qaranka oo cid ka sareysa aysan jirin sidoo kale taliyaha guutada ciidanka commandoska Gorgor oo qayb ka ah ciidamadii soo gaaray degmada Doolow Soomaaliya Xasan Saalax Cabdi iyo taliyaha xasilinta gobolka Gedo Bakaalkooke ayaa bulshada ku nool degmada ku amaanay nabad iyo sida ay u jecel yihiin dawladnimada iyagoona dhanka kala sheegay in ciidamada loogu talagalay in ay u adeegaan bulshadooda dhammaan saddexda ciidanba mishaarkoodii si toos ah dawladdu way u bixisay laga bilaabo saacadan ayaguna waxay mari doonaan shuruucdii uu ciidan lahaa iyo waajibka uu ciidan lahaa nin inta dawladdu mishaar ka qaato inuu waababkaas iskala qaqayro qorigiisa baabuurta ku ceyrsado oo maamulada meesha ku isbaaraysto oo dadka ku dhibo ma shaqeynayso dawladdu waxay mishaarka u siisay askarigaas inuu askari sharafna noqdo matalo qarankii oo Soomaaliyeed sharaftiisa soo celiyo qofka Soomaaliga ee dhiban waa inuu u ordo askari waa inuu ka cararin maanta inaan hortaaganahay shacabka reer Doolow ee nabadda jecel shacabka reer Doolow ee dawladnimada jecel shacabka reer Doolow ee jecel calanka Soomaaliya waxaan tagay gobollo badan tuulooyin badan oo Soomaaliya ah weli ma arag shacabka reer Doolow shacabka dawladda jecel runtii waxaan rabaa inaad ogaataan ciidanka idin yimid waa ciidamadii special forces ka ahaa ama ciidamadii sida gaarka u tababarnaa ee lahayd dawladda Soomaaliya qaranka Soomaaliya uu lahaa waa ciidankiini idinka iska leh waa wiilashiini waa walaalihiin ha ka cararina u soo dhawaada ani markaa wadada soconaay markaa arko qof shacaba oo u istaago runtii qalbiga ay xanuuna ma jecel aniga in leega istaago waxaan jecelahay inay soo dhawaataan Ilyas Cabdirashiid Abdulqaadir warbaahinta Tusmo Doolow Soomaaliya.